بسم الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتا شرفت له قيمة بدن قايها بدن ومركل يوم وقال عصب برتنا دي قد إحنا وبرتيني وبرتن كل مجرني وبرلين أوفيشال آدي يوم هسنتي كسر وهذا من اللي يدك عليها ولا لا قلبي سي شير قريب برنامج كأصحابتا لو ذاك channel كسبسكرايب نوصارا سلي النبي صوبنا صلى الله عليه وسلم هاي المؤمنين والصلاة إذن تاي سوت كذا واي intaa kadib Allah ayaa mahad iskale mahadan la soo koobi karin qisadeeni ayaynu bartanka kaga jirnaa cajaa'ibka lahayd nimayahow qoraxdaas ay dhibtay cadceedaasan bahashaan isaga dhigaya haddaan awoodo sidan uun baan sii oran lahaa magarata afka uun baan duuban lahaa laakiin ima suuroobayso waayahay waxaa inoo maraysay wiilkii oo sidii aabihii u eg oo aabihii laga jeexay oo lixaadkii aabihii iyo quwaddii aabihiina leh cod meel walba uga eg ninkaasoo ilaahay uu ka dhigay copy paste macnaha copy paste waxaan leeyahay haddaad qortid kombiyuutarka oo kale ku qortid cabdi jaamac xirsi oo aad koobiyeysid oo dhinaca kale qortid cabdi jaamac xirsigii buu qorayaa oo aan aakhiri bedel hayn ilaahay hadda rabbi subxaanahu wa tacaala isagaaba dee kaga sii awalaysan wax kastee copy paste buu ninkaasi ahaa copy paste nimadiisaas buu wiilku meesha ku fadhiyaa biibitay fariisisay biyey ka siisay ninkan lugaha ka jaraynaya oo qarqaraya oo naxay markaa gabadhu waa fekeraysaa gabadhu waa gabar aad u caqli badan waxay ku fekeraysaa كم شفنا مراكب مع ذا اللاهوري هديبا نينكي رجعها وحنيها لها وأذيرك وها ويل كان ساق وقرقري أي يدي محاكمة ليس إن النفط كرع ذا على جيها ونينكي انتي بشيء معناها نحدين إني أقلمته نحدين ما هذا معناها فرحة دي وان نحدين إني أقلمته أي على جيها فرحة نفط وبحضه si kasta ha ahaatee gabadhii waxay tiri waa fariisisay wiilkii islaantii baa soo baxday alaabaa tiri gudahay ku carartay carruurteed baa soo baxay carruurtii waa arkeen ninkan ma yaqaanaan carruurta ilaa waxaa la rabaa hooyadood waxay alaabaa ila tiri ciyaalkan iyagaaba 20 jiro iyo wax ka yaryar ilaa 3 baa gudaha ku jiray oo ma garanaysaa gabdha maba fahmi karaanba mana garan karaanba dee ninkan ma garanaynba mabay aqoonba waa maqleen sheeka ahaan bay waxay ku maqleen in hebel la dhihi jiray oo in hebel ahaayo xoog weyna oo saas ahayo mid la dhihi jiray bay maqleen reerkaas oo buu ahaayo allah u naxariisto sheeka noocaas qabrigii lagu aasaxta dadka ma la ekayn sheeka noocaas ba maaragtay aad iyo aad dadka dhexdiisa ka dhaadhacsanayd laakiin haddee maamadan iyadu ninkiiba si saaxa u garanaysaa waa qofkii labaad oo arka oo khalkhala gabadhii waxay tiri niyo dhegeyso islaantan waxay la qaylisay gabdhihii baa u yimi hooyo maxay aragtay alla waa soo noolaaday iyo wareedha kan aniga dhalaya kaad mooday maaha waa wiilkiisii bay tiri sheeka noocaasa islaantii baa la dejiyey islaantii waa ku dhagagtay wiilkii aad bay u fiirinaysaa waxay ku tiri heblaayo waxay tiri gabadhaa waxay tiri hooyo haddaan ninkan hadda u geyno waxaa laga yaabaa in iyada laftigeedu uu sida islaantan oo kale ay wax noqoto adoo nin ragaabaa saa noqday islaantii baaba soo booday oo tirmay loo geyn maayo wiilkan waxaa la geey magaalada gees ka gee gurigayga geebay tiri wiilka iyo hooyadii dad ha loo keeno odayaal iyo ha laga dhaadhiciyo islaanta anaa u sheegay oo wakaa ruuxuu yiri haddii ay waxa kaa aamintay markaad u sheegaysay aniga macnaha ii sheegi lahayd oo wiilkeedii oo ilaahay lahayd waxa la sheegay wiilkii wiilu eg oo dhalay oo waa kaasoo bay oran lahayd waxay moodaysay qof dee iska ma garanaysaa iska khiyaali ah
runku uma malaynayn xaaladda saa ula soco almuhim islaantii baa meeshii la khubeerisay waa la kaxeeyey laba islaamoodoo kale baa intii guriga lagu sii waday arkay ninkii mid walba dhinac bay u leexatay bismillahi raxmaan raxiim bismillahi raxmaan naagtan marka qaladkay gashay wuxuu ahaa waxaa la rabay wiilkan inay ama tinta ka xiirto ama ma garanaysaa lebis kale khamiis iyo tusbax iyo isaga soo xirto garkaan oo dhanna muluq ka siiso timaha ka wax noocaas la rabay laakiin gabadhani ninka berigii way jeclaatay noocii uu ahaana qalbigu kaga daabacan yahay sidii uu ahaa oo ay ku garanaysay bay u samaysay sidii laftigeedii bay u samaysay ay ku garanaysay bay u samaysay oo macnaha shaaruhii ugu samaysay oo garkii ugu samaysay oo tintii ugu samaysay labiskii uu xiran jireen waa u soo xirtay islaamihii fakad bay kala galeen bismillahi raxmaan raxiim qabriga laga soo baxaa camal sheeka ilaa islaamu way ogaayeen ninkan in la aasay oo dhintay bismillahi raxmaan raxiim bismillahi raxmaan way tageen hal hadlin ina keena bay tiri xaafadii bay geysay islaantaas gabadhii baa la diray marka gabadhii iyo wiilkii waa israacay ninkii wiilkii aan iraahday ninkaas yaan nin dhihini wiilkii waxa la jooga laba wiil oo dhalinyaro ah oo ay islaantu dhashay bay guriga ugu tagtay labadaas la jooga kuwaas isaga dhex jira waxay tiri sii joog ayada baa loo tagayaa si aan ayada dhibaato ugu imaan wiilkii iyo gabadhii waa israacay baa ninkii ninkaan adeerka u ahaa iyo hooyadii baa israacay waxay tageen xaafadii bay tageen maamadii joogtay u tageen salaamu calaykum wayade calaykum salaam hooyo saata fiicanta alxamdulillah hooyo gabadhaan ma garanaysa saasay u fiirsateen naagta waa naagtii lacagta iga dilatay maantana ma lacag kale rabtaa inay iga dilato macnaha islaantu waxay u aamintay naag inta u timi wiilkaagaan ilmo u dhalay tiri xoogaa lacag ka cuntay bay u qaadatay inay lacag ka cuntay oo mar labaadkana ay lacag kale rabto inay ka ridato saasay u qaadatay marka waxay naagtaan hadda ka hormay xoogaa iga xantoobsatay malaha waa mid rabta mar labaadna inay iga xantoobsato may wax yiri hooyo xantooba maaha wiilkii ana arkay waa jooga islaantu waa istaagtay mee wiilku xagee jooga iyagoo mar kale wiilkii waa jooga oo ma garanaysaayay sheekadii wada ayaa islaantii bisinsanaysa halka albaabka ka soo gashay iyagu way ka soo hormareen islaantaasi malaha danbay lahaydo danteedii bay inta soo dhamaysatay soo laabatay kuwanise iyagu intay wiilka geeyeen bay toos uga soo tageen oo ma garanaysaa iyagu laalaab kale iyo xuma gelin tan isadana ilahay danaheeda bay soo dhamaysatay way soo laabatay intii warka gaarsiin kartayna way soo gaarsiisay wareer ninkii miyuu soo noolaaday ninkii yaa arkay annaga aragnay ninkii Cabdi Xoogahay yaa arkay bay leedahay islaantii albaabka markay ka soo gashay labadaanba inay soo aragtay oo ninkii ilaa islaantu waa sastay wiilkii markay aragtay bay basastay bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir rahmaan qof qabuur la geliyay oo dhintay oo soo baxay bay u aragtay inuu yahay umaba aragba dadkaana la socday iyo sheekadaasba maba dadkaanba isheedu markii maba qabanba hadday qabateen de garan mayso qalbiga bini aadamku waa miskiin meeshii bay tin waxay tirina haad heblay naama ku war waxay tiri maxaa dhacay naa waxaan arkay bay tiri wiilkaagi wallaahi wiilkaagi baan oo billaahi wiilkaagi baan oo tallaahi wiilkaagi baan arkay wiilka qabriga goormu ka baxay wiilka intaa sii mootan oo intii sii la eg oo aan isbedelin muxuu yahay warka marka waa loo sheegay islaanta oo waa kuwan warka ka gaarsiinaya oo gabadha waatan hadalka hore dhex maray laakiin maamadan waa in filinkii si tartiiba loogu daaraa oo ay filinka xoogaa fahantaa filinkii fahansiintii iyaga waxaba uga fiicnaaday islaantii dhaaranaysa oo kuwanba aan garanayn oo aan aqoon oo de macnaha wiilkan inuu wiilkeedii yahay way ogtahay laakiin markii ay arkaysay inuu adeerkii la socday maba garanayn naagtan dhashayna horeyna uma aqoon markaana ma fiirin islaantii la socotay ma garanayso ninkan baa isheedu ku dhacday khalaas
qalbiga isrogayba cajab islaanti dhaar bay martay waxay tiri markay dhaar martay way tiri ha dhaaran ma aha wiilkaygii waa wiilkayga wiilkiisi anigu kan ma dhalin waa tan hooyadiis ka soo aragtay anigu ma dhalin waa kan hooyadiis anigu kii dhintay baan dhalay kan ma dhalay na wallahi waysagi na makuuyimi na ma aragtay na miyaadan waalan na waa waalan lahaa anigu balaayo ku akhri islaantu tusbax bay haysataa 200 halkaasay subxaanallah allahu akbar alxamdulillah wardigaasay iska wadataa waa la yaqaanaa wardiyaa loo yaqaanaa wardigeeda iska wadataa qof shidana maaha wiilkeedu isaga isaga shida badnaayo xoogaa iyo tadhaxaasan la tagi mooyaane nin iska shida badan isaga unba ahaa mooyaane iyadu reero shidana ma ahayn dadka dhibana ma ahayn waxa uu biyana 99% iyada xalin jirtay ilaahay amarkii waa laga soo dhexgalayaa ilaahay amarkiis raalli ahaada dal alla ku dega alaa kulli xaal warkii maamada waa galay aad bay u fahantay islaantaanay ka dareentay waxay tiri ordaya oo wiilkii ii doona islaantiina waa la joogtaa na wiilka ma arag miya na wallahi bisinkaan boobay ilaa maanta bay tiri qalbigu saasuu ilahaa gaga bay tiri waa isku naxay qalbigaasaa ii kurbanayay waxaan mooday inuu soo baxay qiyaame adduun baa igu soo baxay bay tiri qiyaama igu soo baxay waxaan moodayay inuu isagii qabriga ka soo baxay igama duwanayn waxay tiri naagtan aad arkaysidoo hadda iga tagtay maalin hore ii timi waxay tiri maamoy hadda wiilkaagii baan aniga maaragtay aan isguursanay ninkaas anoo uur u leh buu iriga tag waxaana anigu la joogi jiray reer hebel ahaa oo bay igu tiri waxba hadallada ay leedahay marka bay tiri anigu uma sii fiirsanaynba wax dan iyo heella ahna kamaba lahayn oo qoftaan markii aan arkay inay leedahay wiilkaagii baan wiil u dhalayo waa u egyahayo saan way waxay tiri ekaanshaha iyo waxan iyo filimaadkan ay ii sheegayso xogaa ruwaayad bay ila ekaadeen iyo qof raba inuu ishaxaado oo shaxaad iga raadinaya maadaama ay ila ekaaday qof shaxaad ila raadinaya ay ila ekaatay umaba sii fiirsan dhugba uma yeelan macna uma sii fiirsan hadalladeedan uma fiirsan muuqaalkeeda uma fiirsan waxa uma fiirsanay waxa waa ku dul fikiray fikirkii aan ku dul fikiray baa wuxuu ii noqday ilaahay dartiis gabadhaasi kol waa gabar wax ka rabto ku shaxaadayse warkeedana u quwee wax allaala iyo waxa ay ku weydiisanayso oo noolka ana si oo ilaahay wiilka waa ku keenaya iska si anigu ilaahay dartiis baan u niyeystay ilaahay dartiis ayaan u niyeystay lacag baan nasiiyay waana iga tagtay anigu markay albaabkayga ka baxday baa iigu wardamaysay albaabkayga markay ka baxday baa sideedaba iigu wardamaysay dibna uma sii fiirin dibna uma xusin qof uma sheegin cid lama sheekaysan ruuxna kalama hadlin sababtoo ammaan aaminine waxaan mooday qof aniga shaxaad iga goobaya oo shaxaad iga soo doonaya baan u maleeyay waxay tiri haddaba lagu waran wiilkaa markaa aragtid qof baa inta saa u fiirisid baad tiraahdaa al qofkan hebel bay isu eg yihiin ayaa tiraahdaa laakiin kan oran maysid hebel bay isu eg yihiin kan ma aad oranaysid hebel bay isu eg yihiin waxaad oranaysaa alla waa hebel ahay war way tagtay niyo way tagtay oo way talaabsatay iga tag dheh marka alxamdulillah harkii baa tagay macna qoraxdii baa tagtay in yar bay cirifka kala soo jeedaa marka waa ilaahay mahadiis hadda baan marka
hadli karaa kamaradana aan wax soo yara dhaweeyo hadday joogigii yahay hadday xaaladii tahay hadday caadi tahay wax kastaba ay caadi waa yahay waxay tiri marka maamadii waxay tiri khayr Allah ku siiyo sheekadii markay uga dhacday waxay tiri aniga horta ina easy sheegtid waaba ii farxad sababtoo ah aniga laftigaygu inaan ka naxo baa laga yaabi lahaa iyaguna waxay yiraahdeen waxaanu moodaynay waxaanu ka baqaynay inaa sastide sidaa daraadeed baan hooyo kuugu soo sheegnay hadda oo barnaamijkan kula wadaagnay bal imaanshihiisana waa sugaynaa ninkii baa la soo kaxeeyey marka ninkii markii la soo kaxeeyey oo la keenay xaafadii marka la keenay inta xaafadda lagu soo waday dad ka badan 20 ruux baa wadada ku qabsaday nin dhalinyaro ah waa Cabdi Xoog saaxiib ahaayeen raggii uu aadka wax u tari jiray oo wanaag badan u tari jiray oo ay wax wada cun kala ahaayeen raggii ka dhintay si kale ma oran kartid asxaabtii uu ka geeriyooday oo de asxaabta saxda ah mid kamid ah baa arkay ninkiiba qalal baa ku dhacay qaq korontadii baa ka tagtay wadadu ku arkay hadday korontadii ka tagtay kiibaa la hadlay oo yiri war waa Cabdi wiilkiis de waa nin raga inta soo dhaqaaqay buu isku duubay oo ku dhagay anugu yarka yaaba Ilaahay u keenay dadkan wada qaracmay isaga laftigiisa waxa awal dhibay oo nafsi u keenay wacal baa tahay aabaha lama yaqaan baa dhibtay saaxiib mahadsanid khayr Allah ku siiyo idi ana ku shukranay aad baa mahadsantahay aniga horta sideedaba asxaabay meel kastaan joogo falaastaydu waa agta Allah waa aragtaan falaastaydan marka iyada waxa la yiraahdaa qabxaax balaas qac lagu daray kama maarmaano meel kastaan joogo waa ku tuurtaa sababtoo markaan horta qisada idin wadana wayba iiga sii dahabsantahay bismillaah markaan qisada idin wadana waxaan dareemaa jawi kale idinkana sheekada sheekh u soo qaato baraxda fariista marka ninkii baa ku dhagay wiilka yaan shaahana i qasine ninkii baa ku dhagay ninkii baa dhunkaday adeer buu yiri dad kala yiri war Cabdi Xoog baa magaalada yimi wuu yaabay cunuga marka awal halkaas sheekadu inoo marsay awal intuu dhulkii joogay hooyadiis iyo reer abtigiis wiil reer abtigii la jooga waa adduunka isaga ugu kibir badan laakiin dhibaatada kaliya ugu weyn oo haysatay waxay kamid ahayd aabihii lama aqoon ninka wacal weeye baa lagu xamin jiray xataa waxa jiray mar oo gabar damcay inuu guursado oo gabadhii guur inta u soo istaagtay markii uu rabay inuu guursado in reerkoodii diideen oo ilaahdaan ninkan adeeradiisa la keeno nimaan adeer lahayn waxa weeye noqon maayo anaga nama soo gelaye bar horta ninka adeeradiisa meesha la keeno abtiyaal de waa la yaqaanaa abtiyaal gabadhaanay la dhasheen gabadhana de wixii la dhashay waalid waa yihiin laakiin ma aha abtirsigii iyo aabihii iyo ma aha marka reer aabihii meesha waa inay yimaadaan caqabada guurkana waa magaranaysaa waa la kulmay islaanta laftigeeda guurseeg waxa la dhahaa ku dhacay inka xoog weyn oo tiirka la eg oo gacantu ka soo horeyso oo dhibka badan ba islaantaani dhashay kii guursado mid ka dhalaaba kafurjibis baa u diyaara hadii kale waa inuu islaantaan haday laba fiilo istaabato waa inuu isaga tagaa inta ay ogoshahay
waa inuu la joogaa hadday ka tagtana waa inuu bannaanka maraa moogta si kasta ha ahaatee ninkaasi caqabadahaas xaggaasay ku haysteen maamadaanina wax bixintiisii iyo dowladeed wax ka bixin waayeen bay soo masaafrisay almuhim waa la soo waday sida loo soo waday isagoon xagga iyo xagga loo leexin sidiisaa loogu soo waday dalaq albaabkii baa guriga laga soo geliyay islaanta fadhigii bay ka kici weyday macnaha iyadoo wax walba loo sheegay fadhigii bay ka kici weyday islaantu iska fariisatay waa loo sheegay waxa la yiri waa iyada aabahaa bay dhashay aabahaa baad u eg tahay waa wiilkeedii waxa laga rabaa inaad halka dhunkashada kaga bilowdid lugaha ku geysid laakiin hooyadiisa waxay tiri ninkani waa waalid jecel yahay waa baar dabeecadihii aabihii uu leeyahay dhinac dagaal dhinac shido iyo dhinac waalid jecel iyo aqbalaada hooyadii kan waa sidii oo kale si kasoo fidmo ugu jiro abtigii ama hooyadii iyo wixii qabta oo familka hooyadii ka socda uu istaagi jiray wiil yaro in abtigiisa baa la yiraahdo soo garab istaago yiraahdo dadka leexo halkaas iska mari jiray waqtigiisa macnaha dhinaca waalidka uu ku fiicnaa ninkan marka islaantii sidii fariintii la soo faray buu qaatay uu tagay islaantii ku bilaabay dhunkasho ma hadlin shib islaantii hadalkii baa ku dhigay warkii baa la soo gaarsiiyay kuwii walaalihii naagtii ay islaantu u khasbi jirtay caruurteedii iyadii wixii baa yimi caruur kale ay wadato nin kale u dhashay wuxuu dhan xaafadda yimi xaafadii baa la soo buuxsamay alla waa cabdi xoow islaantii hadalkii baa ku dhigay nab sababtoo awaa u eg yahay iyo waa isagii waa kala laba moogtay meeshan waa u eg yahay wax la dhahaa ma taala qofkii arkaa waa isagii sheeka ah xataa habaarqabto waa iska leeyahay xataa gabadhan haddii ay keeni lahayd wiilkaani 14 13 isagoo jira macquul saanta loo fiirshaal dheelala isaga dhalay waa u eg wallahi waa u eg yahay allah ninkaas berigi isaga dhalay duhur cad buu dhalay sheekana waxa sal dhiila laakiin hadda waxay maraysaa sheekadu waa isagii sababtoo ah intii buu la eg yahay da'du waa da'dii lixaadku waa lixaadkii muruqu waa muruqii garku waa garkii qosolku waa qosolkii indhuhu waa indhihii suuniyuhu waa isku mid aakhiriya bedel male islaantii hadalkii ugu horreeyay oo afkeeda ka soo baxay wuxuu ahaa cabdi xoog waxaan moodayay inuu iga dhintay laakiin cabdi xoog waa kan ma dhiman waxaan aad uga xumahay intuu iga maqnaa sababtoo ah haddii aan cabdi xoog yare arki lahaa cabdi xoog baa dhintay ruuxna kuma yiraahdeen ruuxna kuma iraahdeen cabdi xoog ayaa dhintay marka cabdi xoog allihii weynaa oo waaxid ahaa ayaa islaantii hadalkaa hadday tiri wiilkii islaantii dhabtu kaga seexday barta intuu dhinaca ka fariistay waxaad moodaa in loo tilmaamay intuu geeskaasoo kale ka fariisto darinta oo saa u sii jeesto baa layidhi buu soo jiifsan jiray markaasuu maamadoo lugaha saa u maaragtay oo u fidsatay hadduu xanaaq kasta sameeyo ummad kasta la soo dagaalamo shito kasta soo galo intuu saa u seexda baa layidhi cawda ama dirin ama xasiigta ama qadiifadda hadba kaa u taqaanid intuu saa u seexdo oo fariisto buu halkaa madaxiisa jeegada ah buu wuxuu saari jiray maamada labadeeda boodiyood waxaasuu saa u fiirin jiray dhihi jiray hooyo xariifkaani intii buu sameeyey kor buu usoo fiiriyey hooyo islaantii waa oyday marka intii hore oo dhan ma diirin intii hore oo dhan isma bedelin intii hore oo dhan ma nixin way oyday markaa kadib
bay ku dhegtay oo dhununkatay waxay tiri markuu wax soo xumeeyo intii ugu samayn jiray buu ugu sameeyay dadkii meesha joogay oo dhan oo gurigii oo dhan baa wada ooyay naagtii uu cabdi xoog ka dhintay allah u naxariistay oo u qabi jiray oo weliba dee nin kale laba ciyaala u dhashay oo labadii ciyaal ahayd wadata oo meesha joogta baa oohin kaga tushay iyaduna Soomaali maxaa ka taqaanaa Allah way jeclayd macnaha eeg salan insiinaya waxa la yiri ma maqasheen maamaha la yiraahdo baroorta orgiga ka weyn waxay ku timi naag baa ninkeedii ay jeclayd reer miyi bay ahaayeen marka ninkeedii ay jeclayd baa dhintay Allah hebel waa dhintay Allah u naxariisto waa la soo aasay agoon bay haysaa carruur bay haysaa ilma kama soo dhicin ma ooyin waxay ka baqaysaa ninkii bay u barooratay oo ninkii bay jeclayd in la dhaho dhaqankaasi waa dhaqan aad u xun ma fahmaysaa qof uga dhow dunida korkeeda ma jiro hadday oydo xaq waxay u leedahay weeye baroortu ma banaana laakiin in ilma ka timaado oo qofku qalbiga maaragtay kadmayay keliyuhu may kareen kadab la'aantaydii sheekadii ahayd oo kale in ay keliyaha ka fuuro qofku oo ilmadu ka timaado dee wax la diidayo oo diinta islaamku ay diidayso mamnuuca ma aha waxa dhacday marka gabadhii markay ooyday dacayd baa looga dhigaa macnaha baroorta orgiga ka weyn baa idin wadeeyay iyadoo markaas asbuuc uu sii mootan yahay camal baa waxa ka dhintay orgigii ariga u orgeyn jiray arigu waxay leeyihiin orgi qoodh ahaan loogu reebo oo fir fiican dir fiican oo firiya dir waslamide dir fiican oo qoodh ah baa loo reebaa orgigii baa ka baktiyey markaasay oyday waa la aamusin waayey qoftan waxay la ooyeysaa orgiga maaha ninkeedii weeye odagii aabbaheeda baa fahmay gabadhii waa la aamusin waayey orgigii baa ka dhintay waa dulmi maxaa la ooyeysaa maalin walba xoola dhintaa maxaa ma orgi dhintay baa la ooyeysaa ka dhaqaaqay waxaa la yidhi gabadhii ma soo aamusay wuxuu yidhi baroortu orgiga ka weyn buu yidhi annagaa fahansane baroortu orgiga ka weyn ninku naagtu ninkii bay jeclayd buu yidhi Allah u naxariistay hebel bay u ooyeysaa buu yidhi haatan oohin baa lagu wada dhuftay iyadu marka taasi waxay la ooyday waa ninkii dhintay oo isagii oo soconaya maamadu waxay tiri kaxee waxaad geysaa bartaan la yiraahdo baabayeriga ama timajaraha garka iyo shaarubaha iyo tinta dhammaan ka soo xir isagoo xiran iyaga anigu isagoo xiran aniga aqaan dadka kale isagoo xiran intuu koray oo dhan may arage aniga uun baa garanaya isagoo madaxa baruur kula ii keenay ninkan jar ka soo jara tintaani waxaan ka soo baneeyay sheekadaani waa dhamaanaysa ninkii waa la kaxeeyay in oday ahoo timaha odaygii ka jiran jiray cabdi xoogaha nin oday ah oo meel timo jara kule baa loo geeyay odaygii baashii buu qaban waayay gariir naxadin wuu u roonaa odayga aad buu u roonaa saaxiib bay ahaayeen baa la yidhi odayga wax kasta oo hayo tinta inta u jaro buu jeebka gacanta u gelin jiray wax allaale iyo wuxuu hayuusin jiray hadduu inta wax soo helo isagoo hormaraya uu arko walaa ciyaalkii ugi buu dhihi jiray saaxiib bay ahaayeen wuu jeclaa odaygu markaana nin ka weyn buu ahaa nima isku daa ahaayeen maaha maantana kiyo sidii loo soo geliyay odayga maqaskii buu qaban waayay waa jaray naxdin kaga odayga ilma ka soo daadatay
عبد حوق waxaa la yidhi cabdi xoog maahe kani waa wiilkiisii cabdi xoog allah u naxariistee had tinta ka jar ninka tinta ka jar waxa ninkan loogu malaynayaa cabdi xoog wax kala maaha waa tintaane adeer tinta ka jar ninkan tinta ka jar odaygu wuxuu yidhi ka kaxeeya aniga iga kaxeeya yaanan dhagahayay mirgeeda goyn iga kaxeeya awood u maliya aan kaga jare waa gariirayaa orodku waa kala u geeyey iga kaxeeya cunugii yarka ahaa aabihiis waxa loogu ooyayo ninkan wacal buu isu haystay laakiin markaan ayeeye uu ooyeysa adeer la qaracmay nin tima jaraya oo aabihii tinta ka jarin jiray oo barooranaya oo la iga kaxeeya yaan maqasku igaga dhicin maaragtay dhig yaanan goyn ha layga wado meelaha kale maaragtay way ogaayeen marka odaga asxaabtiisii intii markaas meelaha ka dhadhaweyd baa u timi rag baa maaragtay sawirra ka hayay maamadu sawir kama hayso cid kale sawir kama hayso dhalinyaro uu footo u raaci jiray oo sawir la geli jiray baa sawirradii soo qaaday ninkan horta islaanta taladeedii baa la yeelay timjaraa loo geeyey muluq baa laga dhigay garkii baa laga jaray nayl baa laga dhigay tintii waa laga xiiray wax walba sunniyihii baa wax timaa ku yaala waa laga xiiray saaxiibkaa isagoo tin lahayn oo waxba lahayn buu gilbe kowde isagoon wax timaa lahayn buu ma garanaysaa ilaahay qadartiis soo galay tintii iyo wixii oo laga soo xiray oo xaafadii baa la keenay ummadii bay isugu timiyo sidii taasi guriga taal oo kale ba ummadii oo dhan isugu timi dadkii oo dhan baa xaafada jooga ummadii oo dhan sawiraa la keenay marka ilaa 10 sawir oo kala duwan miduu jiingu waa liibar u istaagi jiray kubaddu ciyaari jiray liibar u istaagi jiray marka hadee waxa weeye markay kubadda la ciyaarayo mararka qaarkood waa aragteen sawir footo ah oo naadiga oo dhan baa la galaa horay buu fariisan jiray isagoo fadhiyo buu kuwa taagan ku dhawaa saaxiibka marka mar allaale iyo markay arkaan marka sawirkii baa la keenay kuwa waxay keenan ka sawirka footada oo caadiya iyagoo isla fadhiya saddex ma garanaysa iyagoo saddex ah oo kuraas fadhiyo sidii ilmo yar saa isugu hayo ma garanaysa waa nimo waaweyn oo markaan bidaar leeftay sawirkii baa la keenay ninkii hadda tinta intaan laga jarin la arkayay weeye oo caadiya waa isagii alla ninkala maxaa tinta looga jaray qaar baa xanaaqay tinta in laga jaro ma ahayn dhiigaa ku karay maxaa tinta looga jaray maxaasaan loo yeelay in laga jaro ma ahayn kuwa iska qaracmay si kasta ha ahaatee ninkii wuu xaafadii buu wuxuu ka mid noqday ciyaalka xaafadda hooyadii marka hooyadii waxay tiri hooyo wiilkaagii waa kan cabdi xoog aniga cabdi xoog waa kuu keenay wiilkaagii qabuurtaasu ku aasan yahay soo maha isagii oo nool baa ilaahay iga gaarsiiyey baa ilaahay iga siiyey ninkaas waa kan anigu caruuro kale oo kala aabba ah baan haystaa oo dekana caashaq magalaysa ku wada dhashay waxa weeye ninkaana iga cayrin jiray camal de waxa weeye anigu caruurta iyo waa iga cidla ah adigana waxaan kuugu keenay ninkani inuu tolkii waa nin gacan fudud waa nin dagaal badan waa nin aan dhib yarayn ma garatay laakiin ehelkii u qabsooma waa si shida badan yahay maanta ana aqaan inta shidadiisa iska tagado anigu shidada ana ku korsaday ana ku dhalay kii horeba kana iida ana ba rababa waaba u xiisayba dhibkii baa u xiisay aan bixin jiray iida maanta ilaahay hanti iyo xoolo waabaysi iska daabay tiraado wuxuu geystan ana bixinaya idina lama hadli karto waa gurigoodii u jooga libaax la ida jiifo way iska tag
halkaasaa loo diray caruurteedii inay dhaqanto oo dhaqanto ilaa waa ka dhaqmi weydi iyada laftigeedu meeshay ku jirtaa waaxid Nigerian laba lafooda baa guriga u jooga waxa weeye qolkaasuu hurdaa islaan jaqjaq madiis waa la yaqaanaa islaamaha qaarkood waa kiyaa kara miiran waa hadal miiran markay hadasho xariifka qoorta la kala jibinayaa mugti marka intii atooraha nabirigan uusan afka ku soo kala qaadin tartiib in dhoolaalay waa kuwa labada dalqadood iga tagay akhay ama saddexda dalqadood awalba waa hore mid kugu furayo edeb baa qaadatay hadda labadii kale waa kuwaas walaalay in kala daa meher xataa kama haysan karaan waa kan hoo iga tag walaalay sheekadu halkaasay gaartay bartaasay gaartay sheekadu xaaladaasay ku sugnayd gabadhii markaa waxay heshay guur ay iyadu ku degto ma fahmaysaa tagtay wiilkii meeshii waa looga tegey ninkii yaa saaxiib laa mataqaan wiilkii cabdi xoog ahaa wuxuu wataa dhaqankii aabihii dabeecaddii aabihii sidii aabihii buu u dhaqmayaa waxa la saaxiib ah saaxiibadii aabihii waxay taagan yihiin waa cabdi xoog oo caadi ah waa la sheekaystaan waa la kaxeeyaan waa ka waaweyn yihiin waa u odayayaan marka cabdi xoog baa magaaladii jooga oo aan dagaalamayn laakiin waxaa jira qaar dhan oo ummad ilaahigay ah oo dee masaakiin ahaan jiray maantana dalacay cabdi xoog u arka inuu isagii yahayba colaadda ay u qabaanba ninkii dhintay colaaday u qabeenba bayba kan u qabaan nimankii uu ka baxsan waayey adeerkii miskiinka ahaa oo ciyaal yaryar sugaayey oo ninkaasi dhalay baaba waxaba yimiba ninkii u caadiya harfaantan marka dhar fitishaari uu xiran jiray dharkii fitishaariga ahaa bay u tolaan waa lagu cabiraa isagu sidiisaba dhar caadiya ma gashto dhar tolliin ah oo gacan loogu tolay maahaane dhar kale ma gashto cabdi xoogna ma gashan jirin kana dhar caadiya ma gashto kabaha 45 waa ku yareer yihiin 45 kabaha ka qaataa marka saaxiibka halkaas waxa kaga bilaabatay dekano iyo shido hor leh halka kaga bilaabatay ninkii wuxuu u dekanoobay dekanadii aabihii uu ka geli jiray niman dhalinyaro ah jawigu waa isbedelay dadkii qoryaal la haystaa xaaladdu caadi maaha jawgii maaha waa la ilbaxay ummadda horumar baa la gaaray isagana rag baaba waxay u dhaarsan yihiin intii uu ku dhuftay waxa jira in uu sidii ushii inta qabtay uu la dhacay derbi oo gacanta midigta ah oo dhan naafaka ah ninkaasi wuxuu dhalay dhowr iyo 10 wiil marka uu dilayo buu wiilal lahaa yar ah ninkaasi dekanada gacmaha jajabay ma ilaawin waa uu qabaa dekanadii laftigeedii buu u qabaa wiilashiisiina waa ku tarbiyay wuxuu taagan yahay ninkan dila macnaha qudda ka gooya wiilashu waa soo tageen laba wiil baa soo tagay waxay soo qaateen tooriyo ajaayo toorida kala jabin bir ajaayo ka samaysan oo intaa leeb xariifkii oo meel biibta nimankaani waa tababareen ninkan waxaa helay niman ka weyn ka da'weyn fulay maaha laakiin waxay ku tababareen markaad fariisanaysid waa inaad biibtada ka fariisataa derbiga adoo saa u soo jeeda oo hortaada arkaya waa in cidii ku imaanaysaa ay bareerku ugu timaadaa sababtoo ah mid kamid ah wuxuu arkay ninkii gacan ahaa gacan baa loo bixiyay ninkii uu gacmaha ka jabiyay oo gacantu ay naafada tahay wuxuu yiri wallaahi cabdi xoog qabrigiisaan baasiin ku shubi lahaa haddaan ogahay inuu ku xanuunsanayo laakiin ubadkiisaan ka jari doonaa maalin bay is arkeen wuxuu ku yiri miduu agbaayimi markaan waaba meeshii ugu fiicnayd
laakiin ninkii 2 nin iyo 3 nin toonna kuma aado odagu wuxuu u diray wuxuu dhalay gacanku wuxuu dhalay awalba ninkan wuxuu kula dagaalamay waxay ahayd xiniya badnaan iyo geesi weey niman wuxuu dhalay niman dhib badan haraale aad halkaas ka marayaan Soomaaliya ba halka ka qeylqeylinayo gadaasha halka maraya marka Soomaaliya marka ay yiraahdo waxa ula jeedaa gabdha Soomaaliyeed ba halka maraya marka waxa dhacday awal buu marka hadalka ku yiri odagu marka wuxuu yiri taga oo 5 inta ugu tagtaan meedkiisa ka talaabsado laba waxay dhaheen niyo aabe anaga wuxuu noo haystaa inaan rag ahayn inaan gabdhanahay buu noo haystaa markaasaan 5 ku aadnaa waaba gunnimo iyo sharaf darre adeer waa u tageynaa inta u tagno halkaasaan ku dhufanayaa ka kale wuxuu wallahi xataa inaanan dhabarka kaga iimaanayn isagoo noo jeedan dilayna niman balaaya ah oo shida badan ilaa ninka ilaahay lixaadka siiyay ba awalba isagoo intaan la eg wuu isku taagay markaasuu sidii u shii inta gacan qabtay lugta qabtay buu darbi la dhacay waba markaasuu gacmihii malash ka dhigay xataa waxa la sheegay gacanta halka inta qabtay inuu jilibkiisa ku dhuftay dhash kaga siiyay abdi xoog lahaa inuu xariisto nin waa aad iyo aad waxa xasuustay آيات قرآن سورة قرآن waxay tiraahdaa لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وياهي معناها تفسير كذا ما aragtay nin xoog weyn oo ku jirta طبعا hadana qaldanayn alam yaqdir alayhi ahad kolba unsulkeeda ba wuxuu ahaa nin xooggan oo dadka maartay waxaan ku xusuustay ninka halka inta qabtay ninka gacantiisa ku jabiyay loogiis bash kiyo gacanta u laaban tahay qabtay oo bash takiisi almuhim halka isagoo fadhiyay soo gaadeen waaba soo aadeen ninkaana waa nin karatay bartay xariifkaani waa kudkii oo kaba loo tolay geesnimada waa bihi xooga waa bihi aqliga aragtida waa bihi hadalku waa bihi Allahu naxariiste karatayna waa bartay halkaas oo kale ka soo baxay labada nin geesnima wada xiniya gubaya maana wuxuu halkaasaan ku dhufanayaa hadaa aragtid xoog badiyay kadib baa laga rabaa waa soo aaday tooridu galka ka xoqday marka iyadoo u jeed macnaha prayer wuxuu rabaa inuu laba u kala gooyo waa soo aaday